السلام عليكم كسو دوادا شركة أسكنكم وصو صارتو waxbarashada fiisaha iyo ciqaamada dalka Turkiga maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc muhiim ah oo aan aaminsanahay inuu saameyn doono qof kasta oo rabo inuu Turkiga wax ku barto wixii ka bilowdo sanadka soo socda inta aan u gudbin mowduucaas muhiimka ah waxaan rabaa inaad ka codsado inaad videogan like inoo saartaan share inoo dhahdaan soo dad badan u gaaro wixii ra'yigiina ahna qaybta commentiga inoogu soo gudbisaan waa maasantiin shalay oo taariikhdu ahayd 25 bisha 11aad 2021 wasaaradda waxbarashada Turkiga ayaa waxay u soo dirtay email dhammaan jaamacadaha dalka Turkiga emailkaas oo lagu sheegayo in wixii ka bilowdo sanad dugsiyeedka soo socdo la bedelay qaabka loo qaadanayo ardayda ajaanibta sida aan hore u soconay jaamacadaha private-ka ardayda ay qaataan waxay ku qaadi jireen oo kaliya darajada dugsiga sare sidoo kale ardayda jaamacadaha dawladda rabo intooda badanna waxay ku gali jireen jaamacadaha dawladda kaliya shahaadada dugsiga sare sanadka soo socda wixii ka dambeeyo taas waa la bedelay oo waxa la qaadi doonaa imtixaan loogu magac daray MYOS dadkeenu YOS way yaqaanaan oo YOS wuxuu ahaa imtixaan xisaab iyo IQ ka kooban oo lagu qaadi jiray dalal fara badan oo adduunka ah oo dalkeena Soomaaliya ku jiro kaas oo ay qaadi jireen jaamacadaha inta aan u gudbin waa maxay MYOS waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto imtixaankii YOS ee hadda magac laga bedelay 2010 wixii ka horeeyay imtixaanka YOS waxa qaadi jiray oo kaliya wasaaradda waxbarashada yaani looma ogoleen jaamacaduhu inay imtixaanka YOS qaadaan 2010 wixii ka dambeeyay si ardayda ajaanibta kor loogu qaado jaamacadaha waxaa loo fasaxay inay qaadi karaan imtixaanka YOS kuwa dawladda kuwa private-kana waxaa loo fasaxay in ayagoon YOS qaadin ay aqbali karaan ardayda ajaanibta 2010 ilaa 2018 jaamacadaha dawladda waxay qaadayeen imtixaan YOS laakiin 18 ayaa Erdogan wuxuu ku dhawaaqay in hadafkoodu yahay in la gaarsiiyo ardayda ajaanibta 300 arday sidaas awgeed wasaaradda waxbarashada waxay soo saartay go'aan kale oo ay u fasaxayo jaamacadaha dawladda inay arday aqbali karaan imtixaan la'aan taasina waxay keentay in ardayda jaamacadaha dawladda soo xareysanayo sanad kasta ay kor u sii kacaan maantana ardayda total Turkiga wax ka barato waxaa lagu qiyaasay 200,000 oo arday 2021 bisha 6 ayaa waxa ay wasaaraddu qaadatay go'aan ah in dhammaan jaamacadaha Turkiga laga joojiyo imtixaanka ay qaadayaan oo lagu laabto 2010 ka hor qaabkii wasaaraddu imtixaanka u qaadi jirtay oo ah in hadda kadib aysan dhici doonin jaamacad qaadayso imtixaanka loo yaqaano YOS oo ardada oo dhan ay wada gali doonto hal imtixaan oo wasaaraddu sanadkii qaadayso oo lagu magacaabo MYOS haddaba aan isla fiirino waa maxay MYOS yaa gelayo yaan geli karin sidee loo galaa hal mar asdaawan haddaba aan fiirino imtixaankan ee qaadi doonto wasaaradda waxbarashada ee loogu magac daray MYOS waxa uu yahay iyo dadka geli karo imtixaankan MYOS waxa la geli doonaa wixii ka dambeeyo sanad dugsiyeedka 2020-2023 waxaana qaadi doono wasaaradda waxbarashada qaybta qaabilsan imtixaanada ee loo yaqaano OCM ayaa imtixaankan qaadi doono imtixaankan waxaa hore u qaadi jiray jaamacadaha laakiin hadda kadib waxaa qaadi doona wasaaradda oo looma ogola jaamacaduhu inay imtixaan qaadaan ardaydana natiijada ay imtixaankan ka helaan ayay ku xareysan karaan jaamacadda ay rabaan imtixaankan waxaa geli karo arday kasta oo dugsiga sare qaab toos ah face to face yani lama ogola ardayda dugsiga sare kusoo dhameeyay qaab online ah ardayda dugsiga sare kaliya imtixaan u galay kuwaas lama aqbali doono kaliya waxaa imtixaankan geli karo arday kasta oo dhammaan dugsiga sare qaab toos ah kusoo dhameeyay ama ku dhameyn rabo meeshaas waa muhiim ardayda qaar ayuu guryahooda joogo ayay imtixaanka dugsiga sare isku diyaariyaan oo online ayay ku galaan kuwaas lama aqbali doono oo taas shalay waxa lagu soo cadeeyay qoraalka ka soo baxay wasaaradda haddaba su'aal muhiim ah imaanaysa marka arday kasta inuu imtixaankan galo waajib miya jawaabtu waa maya imtixaankan waxa geli doono arday kasta oo rabo kulliyadda medicine kulliyadda dentistry kulliyadda pharmacy kulliyadda law kulliyadaha macalinimada sida biology-ga chemistry-ga physics-ka mathematics-ka iyo wixii la soo xiriiro iyo sidoo kale kulliyadaha engineering haddii hadafkaagu yahay inaad barato mid kamid ah kulliyadahaas waxaad ogaataa in aad geli doonto imtixaan loo yaqaano MYOS waa haddii jaamacadaha private-ka laga aqbali waayo codsigooda ah in ardayda laga dhaafo imtixaankan
waxayna u badan tahay inaan laga dhaafi doonin laakiin haddii laga dhaafo waa alxamdulilah haddii laga dhaafo waayana arday kasta imtixaankan uu galo ayuu ku qasbanaanaa haddaba marka kuliyadaha kasoo haray kuliyadahan imtixaan kale maa laga rabaa maya kuliyadaha kasoo haray kuliyadaha meeshaan lagu cadeeyey waxay ku geli karaan jaamacadaha darajadooda dugsiga sare ama sidoo kale waxay ku geli karaan hadday haystaan imtixaanka loo yaqaano SAT ama SIT imtixaanka kale oo abitur imtixaanada kale oo internationalka ah hadday haystaanna way ku geli karaan jaamacadahooda waa haddii aysan rabin inay dhigtaan kuliyadahaas kor lagu soo xusay wadamada imtixaanka lagu qaadi doono iyo qaabka loo qaadi doono weli lama shaacin laakiin waxaa la sheegay in sida uu dhaqsiyaha badan lagu shaacin doono markaas ayaan ogaanay shalay mid kamid a jaamacadaha xiriirka leen ayaa waxay ii sheegeen inay wasaaradda ka ogaadeen imtixaankan in la geli doono sanadkiiba hal mar taas oo runtii ah wax la yaab leh waayo boqolaal kun oo arday oo Turkiga imaanayso hal mar imtixaan uma fariisan karto marka kulay waa arki doonaa qaabka iyo wasaaraddu wax u wado laakiin ilaa ay hadda ma cadda qaabka loo qaadayo iyo meesha lagu qaadayo imtixaankan ardaydu waxay ku geli karaan 6 luqadood oo kala ah Turkish English French Arabic Russian iyo German qof kasta dalka uu ku nool yahay luqadda markaas ugu soo dhow ama luqadda looga hadlo ayuu imtixaanka ku geli karaa imtixaankan inkastoo weli la shaacin oo waxaana si toos aysan ahayn laakiin shalay wasaaraddu waxay wax yar ka taabatay imtixaankan inuu xisaabta qaybta asaasiga ah oo ka imaan doono oo laga yaabo inaan lagu soo darin IQ waa ogtiin yos wuxuu ka koobnaa jiray laba qaybood oo qaybna ay tahay asaasi qaybna ay tahay IQ ay tahay inkastoo aljabra iyo lagu soo dari doono laakiin haddana weli imtixaanku waxyaabaha uu ka kooban yahay macadda ardayda iskuullada internationalka ah Turkiga ku dhameeyay Mayos ayay geli doonaan ardada iskuulo waxaa jira Turkiga ku yaalo oo international ah oo English iyo Carabi luqado kala duwan lagu dhigto ardada iskuuladaas ka soo baxo haddii kuliyadaha kor lagu soo xusay ay u baahan yihiin waxa ay geli doonaan imtixaankan Mayos haddaba waxaa jira marka waxyaabo aan weli la cadeynin oo aan weli si toos ah wasaaraddu aysan ugu dhawaaqin sida imtixaanka qaabka loo geli doono inta jeero la geli doono meelaha lagu geli doono ciwaanada uu ka imaan doono waxaasoo dhan weli lama yaqaano xataa waxa ugu muhiimsan waxyaabaha aan la ogeyn waxaa ka mid ah ardayga darajada laga rabo inuu keeno si kuliyadaha kor lagu soo xusay oo u galo yani ardayga medicine ka rabo iyo ardayga computer ka rabo isku darajo ma laga rabaa mesela laba darajo kala duwan laga rabaa waxaasoo dhan lama yaqaano laakiin waxaasoo dhan waxaana tusaayo waqtiga maalmaha soo socdo sida aan soo aragnay marka imtixaankan MUS waxaa geli doono ardayda rabo inay bartaan kuliyadaha muhiimka ah sida engineeringka kuliyadaha macalinimada kuliyada law kuliyada pharmacy kuliyada dentistry iyo kuliyada caanka ah ee medicine haddii hadafkaagu yahay sanadka soo socda inaad Turkiga ka barato kuliyadaha la soo sheegay midkood ama ha noqoto private-ka ama ha noqoto dawladda waxaan kugu talin lahayn 31 December intaan la gaarin in aad iska diiwaan geliso mid kamid ah jaamacadaha aad rabto si sanadka soo socdo aan lagugu xujeynin imtixaan waayo imtixaankaas waxa ka duwan sidoo kale waxa la isku xujeyn doonaa darajo laga yaabo imtixaanka adoo galay darajo keenay in darajadaas ay noqonayso darajo aad ku geli karto kuliyada engineeringka ama kuliyada medicineka ama kuliyada pharmacy-ga saas awgeed haddii hore aad aqbalaad u haysatay fadlan degdeg isku diiwaan geli haddii hore aad aqbalaadda koobaad oo isla lacag aadan shubin fadlan lacagta shub haddii dokumentiga ku dhameystiran yahay laakiin jaamacad aad xareysan fadlan xareey ama cunugaaga u soo xareey waayo waxaa laga yaabaa kuliyada muhiimka ah ee maskaxdaada ka guuxayso in sanadka soo socda aad weyso waa haddii go'aankan wasaaraddu ay ka laabaweyso hadday ka laabato alxamdulillah waaye hadday ka laabaweysana waxaan aaminsanahay dad badan inay saameyn doonto oo hadda ay u fududahay jaamacada inay galaan laga yaabo inaysan u fududaanin markii la gaaro sanad dugsiyeedka soo socda saas awgeed waxaa codsiga ah inaad nala soo xiriirtaan oo aan idin xareyno jaamacadaha iska diiwaan gelisaan haddii aysan suurtagal ku ahayn sanadkan inaad jaamacad bilowdana waxaan kugula talin lahaa inaad isdiiwaan geliso kadibna jaamacadda ay xirto sanad dugsiyeedka soo socdana inta jaamacadda dib ugu soo laabato meeshaada ka sii wadato waayo mar haddii arday hore jaamacadda ka diiwaan gashan aad tahay marka aad soo laabato imtixaan lagaama rabo saas awgeed fadlan isdiiwaan geliya inta ka dhiman 31 bisha December inaan la soo xiriirtaan haylamaaminina waayo waa ogtihiin jaamacadaha private-ka anagu kuma xareyna wax lacaga ardadana waxaan ugu xareynaa qaab lacag la'aan waliba anagoo u sameynayno qiimo dhimis gaarayso 25% ilaa iyo 75% soo dhawaada waxbarashada dalka Turkiga